waxay yaqaanaan ama magaca farshaxanka waxa waaye 4C runtii farshaxanka yaraanta ilaa hadda wada dugsigeyga sare form 1 marka caqabado jira awgeed meesha ku baajiyay farshaxanka dib ugu soo jeestay waxa arkay inay taagan tahay baahida farshaxanka runtii horta waxa la soo koobi karmaa laakiin farshaxanka waa luqad oo qof walba wax fahansiin karto tusaale hadaa rabto inaad qof dhugul wax fahansiiso hadaa rabto qof luqad qalad ku hadla inaad wax fahansiiso waa luqadda kaliya lagu wada xiriir karo adduunka ku wada xiriir karto aniga ina farshaxanisan noqdo waxa ogaaday anoo yar waxa arkay in artska aad ugu fiicanahay xisooyinka inta socdaan ina ihtimaam siiyo ina sawir aan ku mashquulo markaas ogaaday ina farshaxan ku fiicanahay waxaan iga saaciday aniga hooyada qarilaha siiyo iyo abtige dadkaas igu dhiirigeliyay iyaguna farshaxanistayaal kale ahaayeen wallahi sawirka ugu horeeyay oo caqabad kala kulmay waxay ahayd bandhig oo B21 gallery oo London ku yaalo oo ka qayb galeynay 16kii ah marka waxaan lahayd waxa sameeyeen 2030ka sidee jeclaan lahayd inay Muqdisho ay qaato aragtida Muqdisho inay sameyso marka farshaxan ahaan u bedel adii fikir mustaqbalka sidee jeclaan lahayd inay Muqdisho ay qaato marka waa la badnaa artistayaal badan la ahay tartan la wada galay tartankii waa lagu soo guuleystay dad soo baaseen dadka soo baasana marka ani dadka soo baasana ku jiray ugu dambeyntii waxa sameeyay Muqdisho dhismaha Muqdisho oo casri ah taalooyinkii oo casri ah Muqdisho oo noqotay meel nabad ah meel lagu dalxiiso meel nadiif ah meel qurux badan marka kaasas ikraa ku adkaa ku soo maraa goolal badan ka gaarantii oo isdhig karo waxa ku tahay waa aragnimo waxa ku tahay hor socod goolasha ka gaaray waxa kamid ah anoo farshaxaniinta Soomaali ah in sawirkeyga uu aado London oo gallery London ku yaal lagu soo bandhigo sidoo kale ina Nairobi tago oo artistayaal kala duwan soo barto xirfadu waa muguurto wadankeena haddu soo kabsanaa anaga nagala rabaa inaan naqano dadkii lagu dayan lahaa waarmeysi waraha ka haro waxa dhilaa inay ku soo muujiyaan social media sida Instagram ko kale Facebook ko kale Twitter ko kale TV do kale oo hadda ani Janis EC in waxa ku yiraahdaa fikirkii marka u soo bandhigay ay qaabileen